waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta ku xidhan kanaalka Dayax Tech and Vlog ku soo dhawaada muuqaal cusub ehliya asxaabba muuqaalkan waxaan doonayaa inaan idinku tuso sida aad u qarin lahayd application adigoo oo aan la soo degin wax application ah intaynaan bilaabin kanaalka hadaad ku cusub tahay fadlan kusoo biir oo kanaalka subscribe saar muuqaalkana like saar mahadsanid laba siyaabood baynu kala qaadaynaa moobiladuna waa kala duwan yihiin marka koobaad waxaad sameynaysaa settingskeed aadaysaa settingska markaad tagto halkaa privacyga tegaysaa privacyga haddii aad tagto oo aad halkaa ka weydo app lock aad ka weydo يعني halkan ma yaalo ha isku hawlin oo kala nashqad weyn imka mobilkayga halka ma yaalo laakiin mobilada qaar badan halka ka heli kartaa taasi waa taa haddii kale waxaad samayn karaysaa intaad sidan u soo tagto qaybtaa yare aad soo koobtay mooye maxaa dhaa yare screenka aad keentay mooye laakiin applicationada intaad saa u dhex gasho saddexdaa liidee sare isdul saaran taabo waxaad ku soo dhifataa home screen settingska ku soo dhifo xagga hoose tag hide apps imika waxaan qarinaynaa calculatorka iyo calendarkaas labadaasaan qarinaya xagga sare hidden apps buu soo saaray xaggan hoose dhan baan leeyahay okay shortcutka halkan ay yaaleen imika waad aragtaa inay bannaan yihiin labadaas meesha dhexe xaggan haddaad ka aragtana ma ku jiro marka slide kasta aynu eegno ma yaalaan marka waxaad samaynaysaa hadhow haddaad u baahatay inaad soo heshana halkii baad ku noqonaysaa saddexdii liid aad home screen sharing aad hard appskaa tag calaamadda yare minuskaa dul saaran baad ka qaadaysaa dhan halkoodii igumay soo noqono inaan dib u keenay doonayaan laakiin waa kan calculatorka waa kan calendarkana waa labadaba ku isbarbaryaalaan intaasaan jeclaystay inaan idinla wadaago asxaabay haddii aanu runtii lahayn xitaa qaybtaas aan mobilkaagu lahayn oo applicationna way ka buuxaan play storeka marka aad baan idin salaamaya